kani uu ka duwan yahay dareenkii hore. daawadayaal ku soo dhawaada janalkayga qareenka jacaylka. xog walba oo muhiim ah oo aad soo hesho halisteedana wadato haddii aad la wadaagto walaalahaaga ajar ayaa kaaga qormayo. fadlan waxaan kaa codsanayaa adiga i daawanaya haddii aad aragtid sii sheer garee si walaalka kale uu ugu digtoonaado. halkani waa magaalada Nairobi, gaar ahaan wadada Cham Street. xilliga ku yaalo ayaa waxaa ka kacay saaki dabkaasoo uu dhaliyay sangaas ama waxyaabaha loo isticmaalo kuukanka ama jikooyinka intooda badi ay isticmaalaan Soomaalidu. waxaa ku geeriyootay maamo iyo wiilkeeda iyagoo isla markaasi u diyaar garoobay in ay karsadaan quraacda ay u diyaar garoobay. waxaan idinkaga digayaa halistaan aad u jeedaan in aad ka digtoonaataan oo mar alla markii aad isticmaashaan oo aad jaakaraysaan in uu naqaska uu dansan yahay iyo in kale aad ka taxadirtaan mar walba, ilmahana laga taxadiro. dabka uu dhaliyay ama qaraxa uu dhaliyay ayaad moodaa halka uu la baxay amaba uu fuqsaday xilliga in uu ku habsaday hoobiye, taasoo keentay in ay ku geeriyoodaan gabadha iyo wiilkeeda. waxaa la wariyaa in ay haamamka ay kala fiican yihiin, halka kuwa birta ah markay ay dab ama infalakta uu ka dhasho neighborska kabar uu gaarsiinayo ama uu saameyn uu ku yeelanayo, halka caagana markuu uu dabka u dhaliyo isla markaa uu noqonayo mid isla markii shuuqo oo ka ilaalinayo dabkaasi in uu wax saameyn uusan kugu yeelan ama waxba aynan kaa soo gaarin. dhammaan Soomaaliyeed meel walba dunida daafaha caalamka ay ka joogaan, waxaan ugu digayaa in ay Allah wax dhowree in ay ilaaliyaan markasta oo ay isticmaalayaan xadiraan ayna hubiyaan in uu dansan yahay iyo in kale, gaar ahaan ilmahana si qaas ah lagu waardiyo meel walba joogtaan. Assalaamu calaykum.